بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أمد الصوماليات ولالها الصوماليات meel baa ku sugan tihiin waxaan idinku salaamaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa walaalkiin xasan goodax oo ku sugan masjidu nabawiya alxamdulilah maanta waa maalintii noogu dambeysay insha allahu tacaala sagaalka beri oo ugu dambeeyey waxaan ku sugnayn xaramka maka iyo madiina insha allahu tacaala marka jimcada meeshaan taallo wax la sheegi kara maaha waa maasha allah qofka ilaahay soo waafajiyo oo meeshaan uu keeno keliya ayaa dareemi karo marka waxaan rabaa keliya inaan idinku ma arkinoo baraarujiyo qofkii awooda u suurtagelinaysa sharciyan iyo dhaqaale ahaan inuu mar uun meeshaa yimaado insha allahu tacaala ilaahayna soo waafajiyo wallahi waxa aad dareemaysaan nimcada iyo barwaaqada iyo deganaanta iyo qalbiga kuu degaya ma laga sheekay karo marka insha allahu tacaala ilaahay soo waafajiyo dhammaan walaalaha waxaan kaloo rabaa inaan walaalaha dhammaan inta insha allahu tacaala iga soo codsatay iyo inta aan iga soo codsan oo ducada isoo weydiisatay waxyaabo badan oo ayaga u qaaska ah oo qalbigooda ay dareemayaan ay rabaan oo muraad ay leeyihiin inuu ilaahay u sahlo muraadkooda insha allahu tacaala videogan video kale ka horreeyey oo anoo jooga xaramka maka oo aan sidoo kale idiin soo diray marka kana maadaama maanta salaada subax maantana ay tahay maalintii noogu dambeysay ayadana waxaan rabaa inaan idiin soo duceeyo in ilaahay muraadkiina wax walba oo qalbigiina ku jiro inuu ilaahay idiin sahlo adduunkana idinku xafido aakhirana idinku xafido jannada firdowsi idin geeyo awlaadda inuu ilaahay idiin xafido kuwa raba inay isguursadaan guur xalaala oo nadiifa oo maasha allah ay ku degaan wiil iyo gabar inuu ilaahay u sahlo kuwa awlaad doonka ah insha allahu tacaala ayagana inuu ilaahay ma arkino awlaad khayr qabto oo siiyo baare ah adduunka iyo aakhiraba ma arkino ilaahay ku xafido sidoo kale dadka sharciyada ku adag oo sharciga xoogaa dhibaatooyinka laga geliyey insha allahu tacaala ilaahay waxaan uga baryaa inuu ilaahay subxaanahu watacaala ayagana uu u fududeeyo insha allahu tacaala oo sharcigooda uu soo sahlo kuwa xanuunsan sidoo kale ayagana insha allahu tacaala waxaan ilaahay uga baryaa in ayagana uu caafimaad taama uu siiyo kuwa murugaysan inuu murugada ilaahay uu ka qaado kuwa waalidkood dhinteen ilaahay ka oofsaday oo gurigii rasmiga ka aaday inuu ilaahay jannada firdowsi ugu bishaareeyo kuwa waalidka ka xanuunsan in ayagana ilaahay caafimaad taama uu siiyo waalidkooda kuwa awlaaddooda xabsiyada uga jiro inuu ilaahay awlaaddooda uga soo badbaadiyo xabsiyada ay ugu jiraan kuwa awlaaddooda la jecel wanaagga iyo horumarka iyo waxbarashada inuu ilaahayna ayagana waxbarashada ku adkeeyo inuu ilaahay u fududeeyo awlaad baari ah inuu ilaahay maarkin uga dhigo insha allahu tacaala walaalaha videogan hadduu ku soo gaaro waxaan ku suganahay xaramka waxaan joogaa madiina gaar ahaan masjidu nabawiya salaada subax aan hadda gali rabnaa adiga 30 minute 40 minute meelahaasaan ka dhiman insha allahu tacaala ilaahay dartiis u sheer garay ducadaanna aamiin dhankaada ka dheh waa intaasuu ilaahay ku aqbalaa muraadkaadana ilaahay uu kuu sahlaa waa walaalkiin xasan goodax assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu